لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu ku jirnay dinaga tilmaaminay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilligii dacwadu caalamka ay noqotay ama kor loo qaaday oo ay ka baxday dadkii hoos loogu sheegayay iyo muwaajahadii ama ka horimaadkii ay kala hor yimaadeen nimanka Quraysheed oo ku saabsanaa siyaabo kala gedisan aynu soo tilmaamnay markaasi inuu ka mid ahaa jees iyo ku cayaaraan beenin iyo qosol lagu qoslo shubahaat la soo arooriyo iyo mugdi la geliyo oo la isku dayo in diinta dadka mugdi laga geliyo waxyaabaha ay adeegsadeen waxaa ka mid ahaa markaa iyagoo isku dayayay inay u diidaan dadku inuu qur-aanka dhagaysto waayo qur-aanka oo ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaala cid garanaysa afkan uu ku soo degay hadday dhagaysato waxa shaki la'aan inuu raad weyn ku reebayo waayo de waa kitaabu hidaaya waa kitaabka Allah ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inay dadkan ku hanuunaan waxay arkeen markaa qur-aanku raadka badan uu ku leeyahay mujtamaca iyo sida uu raadaynayo sida awgeed ay waxay door bideen in ay isku dayaan inay dadka u diidaan inay dhageystaan oo dadkooda wax magaratayga iyo meelahaas iyo dhan inta la ururiyo hadii la arkaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo quraan akhrinaya in lagu buuqo oo qaacida ay qaateen hadii uu isagu hadlay idina ka dhacana hadlawn bas cidi kala maqlimayso waxba wala si kala tagaya waxba la dhageysan maayo markaa waka ilaahay subxaanahu wa tacaala quraan ku tilmaamaya leh وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلهي بقى وحليه سبحانه وتعالى كوي قالوا بيبا وحي دهدين قرآن كان هدقي سننا والغوا فيه كبوغا كقايلي يوم هذا يسيدا سيدا لعلكم تغلبون وحلقي أباينا لعلكم تغلبون هنا كقولي ستان أيه بدنطهي بل أهل السير كو حبي سوريان رقبتنا إني انت الرسل قبطين حيرة meelahaas ninkii Nadar bin Harith la oran jiray inuu warku tirikuteena soo ururiyay oo meeshii uu nabigu fariistay alayhi salaatu wasalaam isra wax ka sheegaysana yiraahdaan sheekooyin kala fiican baan hayaa oo boqoradii beershiye iyo waxoodii sheeka xariirtoodii oo dhan intuu soo ururiyay ayuu yiraahdaa aniga Muhammad kaayagee baa sheeka fiican waana ka Ilaahay ku tilmaamay bay mufassiriintu tilmaamaan wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillah ala kulli hal waxa soo dhameeyay waxay ahaayeen nooc la isugu dayay in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo ka ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhageystaan waxa kale oo bilaabmay isaguna nooc cadaadis ah iddihaad in la cadaadiyo oo hadii wararkan badan ee waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta la isula tago cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ee ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu leenay in badan isaga waa ka haybaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof sharaf loo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray haddana waxaa jiray un qaab la isugu dayayo in wax loo dhibo oo mesela qisadaynu ka soo warramayna Abi Lahab ee waa beentii dawladda daba socday bada waa nooc dhibta kamida nin weyni daba socdo una wuxuu leeyahay inay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan ama Jamil waxay sameeynaysa Arwa bint Harb gabadhii la oran jiray waa gabadhii Abi Lahab yaduna waatii heesay lahayd mudammamun abayna wa diinahu qalayna wa amruhu asayna weedcaynkaasi oo kala ah culimadu xadiidku wax ka yiraahdaan waxba ka ururaya marka la eego sanadada badan ay ku soo aroortay waxa ay tilmaamaysaa yani waa mudammam baylahayd waa mid la ceebeeyay mid la heereedaarteeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saas bay ku dhawaaqaysay bal iyadoo waxa la socota waa tii Abi Bakar u iimaneysay lahayd Abi Bakarow ee saaxiibka miyuuna soo caay qad haja yani ma gabay caayu saaxiibka noo soo tiriyay bay leedahay quraanka ay doonaysaa inay gabadh ka dhigto tabad yada Abi Lahab ki soo degay ayay diidantay inuu quraan yahay way rabtaa inay tiraado gabay hijaa iyo gabay caay inuu nabigu soo tiriyo kale Abi Bakarna wuxuu lahaa maya waana tuu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam xadiiskii sahih al-Bukhari ku yaalay
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد بن نبي عليه الصلاة والسلام ميدان أركين بولها النبي سيدة إلهي يريد في عيدي ينعدشي قريشات waxay inta caayaan buu yiri mudammam mid la yiraahdo iyo ay nacdalayaan aniguna Muhammad baan hay mudammam maahi kula caayay ama kula haydartay maahiye kula mahadiyay baan hay oo Muhammad baan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacayga kaasbu ka dhigay waxaad ka garan kartaa yani dibta la gaarsiiyay mesela nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waynu tilmaami doonaa saxaabadii kalena waxyaabihii ku dhacay shaahidu ayaan mesela sheeko warinayo Abdullah ibn Mas'ud عبد الله بن مسعود وحليهي أنغو إساقو النبي عليه الصلاة والسلام تكني بوري كعبضة كتكني أيا وحا صوغ مري جمع قريشة ميشي شوغي بوري كوح قريش كمدا مجلس كودا فردي مركاسا ميت كمدي يلي قردي ودا هدليسي وارميدا ناركين كان تصيح وحالي هذا كوحن كو هدلا يا وحوها أبو جهل كما كعيبو يلو غير بن فلان neefkii geela ay qasheen yaa soo qaadaya uurku jirtiisi calooshii iyo kursi wixii ay daadiyeen reer hebel neefkoodii yaa soo qaadaya buu yiri oo dabeetana intuu ninkan ula yimaado madaxa ka saaraya buu weydiinaya mid baa kacay habar qaba sida xadiista saxiix tilmaamayso waa Uqba ibn Abi Mu'ayt ninkii la oran jiray kaas baa kacay dabeetana wuxuu soo qaaday wixii neefkii la qalay khashinkii laga daadiyay ayuu soo qaatay wuxuu sugay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu sujuuday ayuu halka garba iyo luquntiyo intaas buu ka soo saaray nabigu kaleey salaatu wasalaam ma dhaqdhaqaaqin sujuudtiisii buu iskaga jiray yani saxaabada ama nabiga kaleey salaatu wasalaam marka taariikhdooda aragto waxaad arkaysaa salaadu say ula weyneyd ama sujuudda ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ay wajiga fooda u dhigaan walidaalika baan adduun oo dhami hami badan ku haynin يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث صحيح وتلمامة إن سجوا سجود سن أي دوشة كسارين وركشير نيف قال الله علي يعني وركشير تيسين تلا ساق هذا إن دوشة لقى ساري مع ذلك أنو وحبا قرمونا ياو وح علوسا ياو وحبطنا أنو السجود يسوس كسيشري ولي بحديث كوحة تلمامة نمن كي قريشات مركز قصة الله لدعو قال بقول دوشة كجد على قصة الدرادد oo iyada lagu qosqoslay nabiguna uu iska sujuudsanayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi ila iyo warkii uu dabada u baxay oo uu gaaray Faatimo inan yara yani warkii wuxuu gaaray in nabiguna uu sujuudsanaado qurunkanina uu dusha ka saaraado qurayshina iska qosqosasho warkuu dabada masaajidka uga baxo ilaa uu guriyihii iyo xaafadihii tago oo ay Faatimo markaas ka soo cararto gurigii Faatimo oo timi nabiga kaleey salaatu wasalaam iyadoo inan yara isagoo wali nabigu sidii u sujuudsan oo wixiina dusha ka saarayeen Faatimo markaa ka riday oo intay qoladii carbeed ku soo jeesatay inan yar bay heeday waxoogaa caayayday oo maagmaagtay يعني صلاة الصاص ولا ويرد ولذلك با تقان الصحابة قار كم حديث يا أبي داود وكلينه تلمام يحل الصحابة سوا قارة إن قال هذا صار قبضوا قمون كدفتي أو قمون كيلاب كي كوات كدعي أو يصير ور صلاة هذا وحبه وجوين إن كا قمون كي سيسكوت وصلاة دي سيسكوتي أو قمون لبعض كدفتي أو سكوتي أو متصدق هذا كدعي إلى دي جيسك كده يوتوسيه كدول كشيفي أحد الصحابة كله oo dhulka jiifa uu toosiyay oo leeyahay war maxaad ii kicin weyday inta waxaan nabari kugu dhacay qofka mu'minka inuu ilaahay suurtaaga waa wax weyn marka uu garanayo Allah subhanahu wa ta'ala nabigu alayhi salatu wasalaam markuu salaadii ka baxay ayuu habaaray Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish nabigu ku celiyay alayhi salatu wasalaam ila quraish ba kugu ogahay ila quraish ba kugu ogahay ila quraish ba kugu ogahay buu ku celiyay بل أحاديث الصحيح وحي تلماميسا إنه وضيادي قريشيدي ميشي جوغي قار كمدا مركاسي عن ربابي تضبا كمدا اللهم عليك بسبع نيني إلو تضبان كوغو أوغاهي اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن الخلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد تضبا أصبو النبي وحبار عبالي هذا عبد الله بن مسعود بو حليي
ilaahay baan ku dhaartay waxaan arkay buu yidhi maalintii Badar baktigii gaaladee goofka lagu gurayay toddobadiiba iyagoo ku jira buu leeyahay kuwa maalintaa nebigu habaaraya calayhi salaatu wasalaam awlaa ilaahay kuwaasaan kugu ogahay cabdillaahi ibnu mascuud oo shaahidu cayaano ninka qisada warinaya marka horena lahaa waan arkayay nebiga markii waxaan la saarayay waxna kamuu celin karin isagu mustadcafiintu ka mid ahaa yani isbala fiisu qaati la taagnaa oo waxba nebiga kama dhicin karaynin markay odayada quraysheed waxaan samaynayeen walidaalika maalinta horena shaahidu cayaan buu ahaa markii nebiga waxa lagu samaynayay maalinta dambena shaahidu cayaan buu ahaa wuu joogay markii goofka lagu gurayay meydkoodii kuwa kane toddobadaba Badar baa lagu dilay riwaayaadkaasi saxiixa ah waxay tilmaamayaan ninkii ku taxriidiyay nebiga waxa kan la saaray inuu ahaa Abi Jahl kii soo qaaday waxa kanina inuu ahaa Uqba ibn Abi Mu'ayt inuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qurayshi markay xoog uga hortimi wuu habaaray xataa allahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ayuu ku habaaray ilaahayow waxaan ku weydiisanaya inaad iigu gargaarto toddobadii yuusuf oo kale yani toddobadii sannadood ee abaarta ahayd ee nebi yuusuf qoomkiisa lagu itixaamo kale ilaahu kuwan abaar ku itixaam buu leeyahy dabeetana abaartii baa qabatay waxay gaadheen xad ay cunaan baktiga iyo saamaha la cuno markii wax la cuno kale la waayey oo cirku uu noqdo baa la yidhaahdaa dukhaan qiiq gaajo daraaddeed abaare ay muuqato oo uu yimaado Abu Sufyaan ninkii la odhan jiray baa la yidhi baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaka ta'muru biطaacati illahi wa bisilati raxim maxamedow dadka waxaad faraysaa ilaahay taacadiisa waxaad kaloo faraysaa qaraabo xidhiidhin tolkaana maanta gaaja halaagaysa oo balaayada tan baa haysataa ilaahay uu bari ilaahay waxaan uu ka qaaday yani ilaahay way rumayn doonaan oo kale macna ah quraanku xaadiثada waa ka sugaya fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhaanin mubiin ila qawlihi caayidun laga gaarayo markuu nebigu alle u bariyayna gaalnimadoodii bay dib halkii uga sii wadeen waxba may raacin qaaluu rabbana kshif 'anna al-'adaaba inna mu'minuun bay lahaayeen laakiin may dhicin sidoodii ayay ku sii wadeen nabigana calayhi salaatu wasalaam sidii ayay u sii beeninayeen mushrikiintaasi waxay ku gaadhay xad ay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo quraanka akhrinaya markay maqlaan ay caayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari iyo muslim soo saaray oo kale ay ilaahay caayaan oo quraanka caayaan oo cid walba maagaan dabeetana uu soo dego quraan ilaahay leeyay wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila lillahi subhanahu wa ta'ala korha u qaadin salaada markaad quraanka akhriyayso hoosna u dhigin si asxaabadaadan iyo cid kula joogtaa u maqasho wabtaghi bayna dhalika sabila yani nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi diinta kor u dhawaaq inta badan wuxuu isku day jiray inuu ku tukado masjidul xaraamka oo markaasi asnaamtoodii iyana ay u taallo majlisna oo ay day fadhiistaan oo isugu wada yimaadaan qurayshi in badan waxay isku dayday inay nabiga calayhi salaatu wasalaam cadaadis oo dhan saarto nooc walba isugu geyso xataa ay ka gaadho Abu Jahl oo kale intuu dhaarto inuu yidhaahdo waryaa qurayshay maalin walba maxamed bayntu halkan yimaadabu wajiga ku boodhaysta isagoo u jeeda yani sujuudaanu doonayn inuu yidhaahdo ilaahay sujuuda markaasuu leeyahay maalin walba bayntu maxamed halkan yimaado ayuu yacfar maxamed wajha bayna adhurikum bartankiina buu maalin kasta wajiga ku boodhaysta haa bay yidhaahdeen wallaata walcuzza buu yidhi lain ra'aytuhu yafcalu dhalik la aطanna calaa raqabati aw la acfiranna wajhahu fi turaab laata iyo cuzzaan ku dhaartay buu leeyahay waa labadiisii sanamada tan laata iyo cuzzaan ku dhaartay haddaan arko mar dambe isagoo meelahaasi foorfoorsanaya halkaa meelaan ahay raqabada inaan iskaga taagin buu leeyahay markaasuu wuxuu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya markaasuu isku dayay inuu isku taago laakiin ninkii hanjabayay ee qurayshi caynkaa u lahaayee in la lahaa bal wuxuu sameeyo ha la arko markuu nabiga ku soo dhawaaday calayhi salaatu wasalaam ayuunbaa la arkay isagoo dib u guranayo dib u cararaya war maxaa kugu dhacay bay yidhaahdeen wuxuu yidhi inna baynii wa baynahu lakhandaqan min naar wa hawlan wa ajnixa war markaan ku dhawaaday uun ayuunbaa man arkay buuhi god naareed oo ka sokeeya iyo holac iyo beliya baas meesha ka baxaysa dabeetana dib baan u soo cararay buu leeyahy waana tuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam low danaa minii lakhtatafathu lmalaa'ikatu cudwa cudwa hadduu ii soo dhowaan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixu muslim ku yaalla hadduu ii soo dhowaan lahaa malaa'igtaa kala boobi lahayd buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qisada tanna qur-aanku waa ka qoray ee tilmaamaya
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. إلهي وكنت المامية سبحانه وتعالى بني آدم كمركو درقه إنه قوق يكبر كبلابه يا الله سبحانه وتعالى وتلمامية كورما متكن أديد يا أدون إلهي وتكنيه يعني وحبك له سميه مجرت إلهي وتكدي تصبح عرق لسي oo dhibku noqotay baa la leeyahay subhanahu wa ta'ala ilaahay suurada dhamaadkeeda ilaahay ka gaadhayo faliyad'u naadiya sanad'u zabaniya la ku tilmaamayo subhanahu wa ta'ala nabiga alayhi salatu wasalaam cidhiidhiga ay ku sameeyeen ama dhibta ay u geysteen ama waxyaabaha ay u tilmaameen runtii aad u tiro badnay xad bay gaarsiisantay midalan Urwa ibn Zubayr ayaa wuxuu leeyahay عروة بن الزبير أيها وحويدية عبد الله بن عمر بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروح هذه قورا تابولي وحي وقتك أيها المشركين تنبغى قصة ميسي عليه الصلاة والسلام حديثكو حقية لبخاري وحيدي سيقو النبي قلت كنيا عليه الصلاة والسلام كعبضة فناقه إذا مبنان كده يسيقو كنت كنيا أي عقبة بن أبي معيط سوقع بلابوري عقبة بن أبي معيط وكي هراء مركي هرانا صاري النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوس كساري يوركو شرته دبتنا النبي أيو أنتو قرب كقبطي بوقاي كوريتشي أو كعيتشي بولي أيو كبختين قاعدة يسقى النبي قبل السرير قاعدة أيو أبي بكر سوق قاعدة بولي يكفر فري يسقى لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وآيات كاسنا كوالا كقول رمي سبحانه وتعالى عمر بن عاص حليه مركز أبيه أيا يعني عبد الله بن عمر باشا كذا وشيء يا عروة بن الزبير دبيتنا عبد الله بن عمر بن عاص أبيه بكل قصة كورني وحليه عمر بن عاص شاهد عيان للحادثة وها يعني واتشوقي مركي أي موحك النبي عليه الصلاة والسلام لقو سميني على كل حال قريشي انتي اي دبي كرتبه ويسوغيسay inay nabiga dhibto alayhi salatu wasalaam dhibaatooyin aad u tiro badanna way isku wada dayeen inay u geystaan bal wax kastaba way isku dayeen waataynu xagga dambe ku gaari doonay ilaa ay isku dayeen inay dilaan markaasi ama ay kow kaga siiyaan marar badan baanay xataa dilka isku dayeen markan oo qudhamay hayeen marar badan ay isku dayeen nabiga alayhi salatu wasalaam inay dilaan waxaanad garan kartaa mararka qaarkood midalan xadiidka la warinaya ibn Abbas waa kale Quraysh baa isu timi dabeetana waxay isku dhaarsadeen Laata iyo Uzza iyo Manaat ayay isku dhaarsadeen Maxamed hadaynu aragno inaynu maanta dillo dabeetana Faatima nabiga u timi alayhi salatu wasalaam warkii maqashay oo ooyeysa oo leh هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك إلهي رسولك سيو كوحدان قريش مدحي waaweynteeda halkan fadhida waxay isku dhaarsadeen oo ku ballameen haday ku arkaan inay ku dilaan si dhiigaagu dadka uu kala firdho waasuu nabigu wuxuu ku yiri ya bunayya adni wudu'a weysayso dhaweeb ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam uu weysaystay dabeetana masaajidku galay markii ay arkeen nimankii dheeranaya lahaa waa dilayna markay arkeen bay codka hoos u wada dhigeen oo majliska ayar xabad uga siifteen markaasuu nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam intuu soo qaabilay dhamaantood nimankii oo aamusan oo hoos u forforada ayuu ciid intuu qaaday buu madaxa kaga shushubay isagoo la shaahatil wujuh xadiidkani waxa uu tilmaamay musnad imaam ahmed buu ku yaala isagoo laba sanad oo saxiix ku soo aroray sidoo akram diyaa al-umari sheekh la yiraahdo kitaabkiisana inuu gacanta ku hayno ku qorayo waxa uu markaasi nabigu kaleey salaatu wasalaam ku saydhay buu yiri ciidi ma jirta buu yiri maalinta ciidi uu saydhay mid uu ku saydhay ilaa iyo wuxuu ku jiray maalintii badar ku ilalaayay qisada tan ciid ku saydka dhowr goor buu nabigu sameeyay kaleey salaatu wasalaam markanina waa kamid markaas waxaad ka garan kartaa dhibtay nabiga gaarsiinayeen xad nabiga kaleey salaatu wasalaam la weydiinayo ama sida nabiga loo dhibay kaleey salaatu wasalaam oo nabigu ka yiri laqad ukhiftu fillahi azza wa jalla wa ma yukhafu ahad ولقد أذيت في الله وما يذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم والليلة وما لي ولا ليلا طعام يأكله ذو كبد
ilaa shayun yuwaarihi ibtu bilaal. wuxuu nabigu ku tilmaamaya yani dhibta iyo mashaakilka qabsaday waa lay bajiyey ilaahay dartii baa lay maagay oo laygu digay si aan cidna loo dilin buu leeyahy. waa lay dhibay si aan cidna loo dhibin. waxay soo martay buu leeyahay 30 caana maal, yani 30 habeen iyo maalin isugu jira oo aan xataa wax raashinana haysan, wax yaroo kilinkilada bilaal in qaadayn leeg, yani waxaan waxba ka macno ahayn aan intaasoo dhan haystay buu tilmaamaya. waxaad iska garan kartaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka mida reer banu haashim, oo ka mida dadkii quraysh ay maamuusi jirtay, oo nin weyna oo odayadii quraysh ay joogaan, oo abi aalib oo ilaalinaya uu joogo, haddii dhibta la gaadhsiinaya isaga ay nooca kan ahayd, waxaad qiyaasi kartaa markii dadka kale mustadcafiinta ahaa ee islaamay iyaga sida loo galay. yacni iyaga runtii wax laga sheegaaba iska yar markaas. haddaynu dhowr xadiid ka soo qaadanno axaadiistaa saxday, cabdillaahi ibnu mascuud baa wuxuu leeyahy oo shaahidu cayaan ahaa, islaamka markii korka loo qaatay buu yihi awalu man adhara islaamahu sabca buu leeyahy. dadkii ugu horreeyey islaamkooda muujiya waxaa ka mid ahaa buu leeyahy 7. maaha dadkii ugu hor islaamay, waa dadkii islaamnimadooda muujiya 7 ka mid ahaa buu leeyahy. 7daasi waxay ahaayeen buu yidhi ilaahay rasuulkiisii iyo abubakar iyo camaar, waa camaar ibnu yaasir, waa wiil dhallinyaro ah oo qoys xoolale ka dhashay ayuu ahaa markaa, oo reerkii intay dayriyeen dhibaatoo dhamme jirifi dushiisa ay fushay baa la yidhahdaa. camaar ibnu yaasir maaha, muscab ibnu camaar weeye ka reerka qoyska xoolaale ka dhashay. camaar ibnu yaasir iyo hooyadii iyo aabbihiiba waa kuwa iyaga la wada cadaabayay. hooyadiina waa sumaya, aabbihiina waa yaasir. hooyadii iyo aabbihii iyaga sidii loo tacdiibaya ku dhinteenbe. camaar buu leeyahy iyo hooyadii oo sumaya iyo suhayb iyo bilaal iyo miqdaad buu leeyahy. waa 7dii ugu horreeyey islaamnimada muujistay. laakiin wuxuu leeyahay ibnu mascuud, rasuulka isaga adeerkii baa wax ka celinayey, abi aalib ah. abubakarna nin odayo oo tolle buu ahaa oo qoomkiisaa wax ka rabayay. amaa kooxdan kale buu leeyay iyagu mustadcafiin bay ahaayeen. dabeetana waxaa la dhadhansiiyey buu leeyahy dhib dhammaanteed baa la dhadhansiiyey. waxse u adkaysi badnaa un buu leeyahy ninka la yidhaahdo bilaal, oo naftiisu ay ilaahay agtiisa ugu fududaatay, oo u arkay yani naftiisa inuu wax kasta u ogolaado, wax kasta ha lagu sameeye, inaanu marnaba eray xumi ka soo bixin. xad bay gaadhsiiyeen buu leeyahy bilaal inta hoggaan lagu xidho, caruurta loo dhiibo, oo shicaabu maka la mariyo, marka la tumee si kasta loo jilciyo, oo haddana aan afkiisa wax kale ka soo bixin buu leeyahy inuu yidhaahdo axad mooyaane. abibakar baana markii dambe bilaal sida xadiista saxiixi tilmaamayso iyagoo dhibay oo nafta isugu keenay oo dhagax saara oo wax kasta ku sameeyey, ayuu abubakar u yimi oo yidhi waar iga gada addoonkan anigu idinka iibsado. iyagoo khaatiba ka taagan bay idhahdeen waa kaa gadaynaa keen lacagta. dabeetana abubakar bay lacagta ka qaateen. abubakar baa markaa intuu iibsaday xoreeyey oo sii daayey. curwa ibnu zubayr oo imaamu ahli lmagaaziya ayaa wuxuu ku tilmaamayaa abibakar buu yidhi wuxuu xoreeyey 7 ka mida kuwii ilaahay dartii loo cadaabay. waa yani xadiis mursalnimo saxiix ku ah. 7 ka mid ah inkastoo xaakim iyo dahabiba ay tasxiixiyeen iyaguna. 7 ka mida buu xoreeyey buu leeyahay. caamir ibnu fuhayra ninkii la odhan jiray, waa ninkan shalay lahaa ma xasuustay inuu addoon ahaa, laakiin waxaa cad inuu addoon ahaa. iyo bilaal iyo nudayra gabadhii la odhan jiray, ummu cubays, nahdiya iyo walaasheed, iyo jaariya min bani camar ibni mu'mala. intaaba waxa xoreeyey baa la yidhahdaa abibakr sidiiq. mustadcafiintaasi sidii loo cadaabayay maruu wax ka tilmaamayey asxaabulmagaazi ay soo arooriyaan, waxa uu sheegaya yani dhib aada u tiro badan dhammaantood in la wada mariyey. qaarkood intay si loo cadaabay indhaha ka dhaceen ay yidhaahdaan indhahana laatay iyo cusa kaa riday, ay tidhi ilaahay mooyaane cid kaloo iga rida ma jirto, oo indhaha alla u soo celiyey. laakiin waa masaajiru siira say sheegaan, sixadeeda ma hubno. waxaa ka mida yani mustadcafiintaasi intooda badan waxa xoreynayuun abibakar, sida xadiidkii saxiixa uu tilmaamayo. oo abibakar isnaad xasana xadiid ku soo arooray baa waxa uu sheegaya abibakar markuu dadkii addoomaha ee muslimiinta ee la istidcaafsaday tirada badnaa markuu xoreeyey, ayaa aabbihii la hadlay abu quxaafa. aabbihii baa wuxuu ku yihi low annaka actaqta rijaalan jaldan yamnacuunak, war kollayba haddaad wax xoreynayso maad rag xoog waaweyn oo wax kaa raba oo haatan ciidan oo ku caawiya maad kuwa xoraysid buu ku yidhi. odaygu markaa weli ma islaamin,
laakiin wuxuu leeyahay abubakar haddaad kollayba lacagtaadii bixinayso iskharash garaynayso aad cid xoraynayso maad xoraysid niman xoog waaweyn oo ugu yaraan dee wax kaa rabi kara. abubakar baa markaa wuxuu yidhi wax kale ugama dan lihi, xoog iyo manco kama doonayo inay wax iga rabaane ilaahay wejigii baan u xoraynayaa buu leeyahy. waa asbaabay ku soo degtay bay culammadu yidhaahdaan faama man acطaa waاtaqa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilisra ilaa iyo aayaadka laga gaadhayo wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaءa wajhi rabbihi اlaclى walasawfa yarda. yacnii inuu ilaahay dartii un dadkan u xoraynayay ee aanu dan kale ka lahayn. dadkan mustadcafiinta ama laga tunjilecsaday sida loo garaacay camaar ibnu yaasir oo kale riwaayaat xadiiiyan aan asixin lakiin culamaai taarikh ay yidhahdaan taarikhdaasi waa suganta iyo mufasiriintuna ay ka warramaan asbaab nuzuulka ay ku sheegaan. waata camaar la tilmaamayo sidii loo dhibayey in la gaadhsiiyey inuu nebiga wax ka sheego calayhi salaatu wasalaam. dabeetana intuu wax ka sheegay ay sii daayeen, kadibna uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cudur daaranayo ooyayo le waxbaa iga soo baxay. uu nebiguna ku lahaa aayaadkani marka ay soo degeen ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan aayaadkii tilmaamayey ee sheegaya inaan gaalnimada loo qabsanaynin qofka dee la dilay ee la tumee lagu qasbay inuu ku dhawaaqo erayada uu ku dhawaaqo inaan loo qabsanin mar haddii qalbigiisa iimaanku uu ku sugan yahay oo waxa kan qasab lagaga keenay. waxaad ka garan kartaa dhibta muslimiinta la gaadhsiiyey raggii la dhibi jiray waxaa ka mid ahaa oo kale maalan khabaab ibnu larat, waana ka markii dhibtu ka badatay nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ele waxaan u imi nebiga oo burdihiisii go-iisii yacnii shaqalaystay ama mutawasid ku ah kacbada hadhkeeda. markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuula allahi alaa tadcu lana, ilaahay rasuulkiisiiyo maad alle noo baridid, waad aragtaa waxaana haystee dhibtanna haysata waad aragtaaye maad ilaahay noo baridid baan ku idhi buu yidhi. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay buu yidhi isagoo wejigu casaaday, yani isagoo cadhaysan. dadka midabkeenan madow dee dadkan aan lahayn wejigooda inta badan waxaa ka muuqata qofku hadduu faraxsan yahay iyo hadduu cadhaysay markuu cadhoodaan wejigu aad buu u casaadaa, dhiigga kusoo urura oo waa uu qofku muuqanaya. wuxuu kacay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo soo fadhiistay isagoo aad wejigu u casaaday. dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi laqad kaana man qablakum layamshidu bimashaati alxadiid maa duuna cidaamihi min laxmin aw casab. wuxuu nebigu uga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam ummadihii ka horreeyey iyaga sida islaamka u haysteen iyo cadaadiska iyo dakdi iyo cidhidhigii la saaray. markaasuu wuxuu nebigu ku yidhi war ummadihii idinka idinka horreeyey diintooda ayay haysteen iyadoo midkood buu nebigu leeyahay gafeedh bira lafta iyo diirka iyo hilibka lagu kala saaro, yacnii qofka oo intaa la xidho dabeetana fargeeto yaro bira inta loo qaato lagu gooyo ilaa iyo lafaha lagu soo saarayo lagu diirayo hilibkiisa. waxaasoo lagu samaynayay buu nebigu yidhi maa yasrifuhu dalika can diini, diintiisa kamay celinayn. bale nebigu qisada uu sii wada wuxuu yidhi qaarkoodna wuxuu tilmaamay nebigu inta god loo qodo oo kale in halkaa mishaar laga saarayay madaxa bartankiisa oo sida looxa loo soo mishaaraynayey ilaa iyo laba u kala dhaco. qofku inta xaggan laga soo mishaarayo dabeetana laba loo kala gooyo sidan hilibluhu hilibka u kala gooyo kale maa yasrifuhu dalika can diinihi buu nebigu leeyahy. dadka sidaa loo cadaadinayey waxaasi diintooda marnaba kamay celinaynin. markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada tan u bushaaraynaya walayatamanna allahu hada almr xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadramowt maa yakhaafu ila allah. allaan ku dhaartee buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo ay gaadho ninka socotada ah ee raakibka ahi ee sanco ka yimi ee xadramowt ka socda aanu cidna ka biqi doonin ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala. yacnii amni intuu dhaco waa dhul buu markaa tilmaamaya yacnii ama qowlaysato ama qutaacu ariiq ama dad badanoo wax dhib ay jirayeen inuu ninkaasi intaa socon doono isagoo aan cidna ka cabsadan. iyagu makay ku aamin la'yihin. nebiguna wuxuu tilmaamaya socdaalaynta la galo inaan haddana wax dhiba aan la arki doonin, laakiin wax waliba waxay u baahan yihiin maxay? sabir bay u baahan yihin. noloshu ilaahay dadka uu itixaamaa, waxaana lagu itixaamaa biqadri iimaanihim, dadka iimaankoodu intuu leegyahay. walidalik buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka waxa uu u imtixaan badan buu yidhi ambiyada, uma alamhalu falamhal. dabeetana sida loogu kala dhowyaa loo kala imtixaan badan yihi. imtixaankaasina waa dadka ilaahay wuxuu ku kala saaro subxaana wa tacaala. marka imtixaanka iyo dhibtu timaado ayaa dadku kala muuqdaan, kiisa deeqsiga iyo kiisa fiican iyo kiisa adkaysi badan le iyo ka waxaanay dhab ka ahaayeen iyo kii dadka iska dhinac socday uun markaas bay dadku kala muuqdaan. idan ibtilaagu waa waxa dadka lagu kala saaro.
khabaab ibnularad-ka aynu sheegaynay nebiga sidan ugu yimi caynkan u sheegayey wuxuu ahaa nin muslima oo saxaabiya oo farsamo yaqaan ah. wuxuu ahaa dadkan biraha wax ka sameeya farsamo yaqaanka ah. ilaa xad bay gaadhay yani dhibta kale lagu hayo daaya xataa wax yar uu shaqaystan ay ka qaadaan ama ay ka dafiraan. waa ka caas ibnu waa'il odayadii quraysheed ee sufahada ahaa ka mid ah. quraysh odayadoodii ugu waaweynaabuu ka mid yahay diin ahaan, laakiin dadka ugu foga ayaa intuu seef uu tumay oo uu sameeyey ayaa waxoogaa xoolaabuu ku yeeshay. xoolihii buu yidhi sii ku siin maayo buu ku yidhi ilaa aad maxamed ka gaalowdo mooyaane. xoolahaga wuxun baad helaysaa haddaad maxamed ka gaalowdo. khabaabna wuxuu ku yidhi maxamed ka gaaloobi maayo ilaa yaad dhibato oo dabeetana weliba lagu soo saaro. oo yani wuxuu tilmaamay inaan suurtagal ahayn inuu ka gaaloobo. caas ibnu waa'il oo markaa bacdu bacda almowtka ku jeesjeesaya wuxuu yidhi haddii dhimashaduba jirto ilaa adigu adduunka wax xaqiirkaasaad ku haydaan waxba haysane haddii dhimashaduba jirto laysu soo bixinayo aakhirana anigoo sidii soo dejinayale afara'ayta alladii kafara biaayaatina qaal lauutayana maalan wawalada. yani aakhiro marka la yimaadana xoolaa la iman doonaa. waa kale aطalaca alghayb am ittakhada cinda araxmaani cahda. waa ka alla ku tilmaamay subxaana watacaala. ma qaybkuu sii daalacday mise ilaahay baa u ballan qaaday in waxaan la helayo. yani xagguu ka keenay inuu aakhiro xoola la iman doono iyo wiilal inuu la iman doono. xaggay uga timi ba alla leeyahy subxaana watacaala. idan waxaan leenahay dadkii muslimiinta mustadcafiinta dulmigu wuxuu gaadhay xadkaasi xoola laga qaado ee jidhkooda la gubo ee wax walba lagu sameeyo ee si kasta loo dulmiyo. xataa intii wax iska yaro dhicin kari lahaydna midhmidhka shabaabka ama yaro xooggan ee isbiimayn lahaana waa loo diiday. oo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ile wax dagaalaha qaadina. alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiikum waaqiimu الصalaaة. waa ka aayaadka alla kaga warramayo. yani raggii islaamay rag dhallinyaraaba iskaga jiro xooggan oo malaa maalinta hore dee dagaalami kari lahaa marka la isugu yimaado dambe haba dambayse maala cabdiraxmaan ibnu cawf iyo raggaasi oo kale. laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray waktiga kan inaan wax dagaala la qaadin lixikma. dhibtu markay kusii badatay muslimiintii waa loo diiday inay dagaalamaan. caaisha waxay leedahay nebiga hijrada la weydiiyey bay tiri. markaasaa waxa uu nebigu yidhi markaa caaisha hadlayso oo nebiga wax ka warinaysa calayhi salaatu wasalaam. caaisho hijrada la weydiiye hadlaysa. caaisha waxay leedahay laa hijrata alyawm kana almu'minuuna yafiru axaduhum bidiinihi ila allahi tacala wailaa rasuulihi makhaafa an yuftana calayh faama alyawm faqad adhara allahu lislaam walyawma yucbadu rabbah xayu yashaa yacbudu rabba xayu shaa. caaisha waxay leedahay hijra maanta ma jirto inta hijro la weydiiyey. yani waa mawquuf cala caaisha. waxay leedahay mu'miniintu waxay ahaan jireen kuwo diintooda lagu fitneeyo lagu itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yani hijrada u ogolaan jiray xad ay ka cabsanayaan in diinta lagaga saaro sida loogu wado. maanta bay leedahay ilaahay baa islaamnimadii kor yeelay oo qofku meeshuu doona buu ilaahay ku caabudaya xagguu u hijroodaa bay leedahay. cabdillaahi ibnu cumarna waa ka tilmaamayey islaamku buu yidhi qaliil buu ah xadiidkii bukhaari kaana alislaamu qaliila fakana rajulu yuftanu fii diinih ima qataluuh waima yucadibuuh xataa kahura alislaamu falam takun fitna buu lahaa. yani waxay ahaan jirtay buu leeyahy ninku intuu islaamo in diintiisa laga fitneeyo ama la dilo ama la cadaabo ilaa iyo islaamku uu batay buu leeyahy oo dabeetana fitnadaasi la waayey dadka diintooda laga fitnaynayay. waktigan hore ee muslimiinta dhibaatada ku badanayd ilaahay subxaana watacaala wuxuu u carbinayay dadka kan inay noqdaan dadkii islaamka qaadi lahaa. dadaan naftooda u dagaalamin iyo waa lay dhibay qura ee u dagaalamo un mabaadi. nufuustuna ay la yartay iyo xamiyada iyo cadhada iyo laakiin waxa la weyn uu noqdo inay diintooda u diriraan faqat. walidaalika baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu waktiga hore ku tarbiyey inay nafta xakameeyaan oo sabirka ay bartaan oo cibaadada ay badsadaan. waxaa la baray inay habeenkii in badan ilaahay ku xidhmaan. qofku kullamaa ilaahay xadhigiisa uu xoog usii qabsado waa kullamaa dulqaadkiisa iyo adaygiisa iyo ninnimadiisu ay sii badato. walidaalika baa ilaahay subxaana watacaala tawlkay sidan ku jireen waxaa la faray cibaadadooda inay sida caadigaa ka badato. yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إلهي وحو فري سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام إنه هبينكي كعه أو إنتين لا كعه هبينك نسكي تاغنو أما كبكر نبال يري نص أما كيرا يري انتو مواقوب بنانتي لكن هبينكي كع سقية صحابة ديسي وانا كعين إلا إيوه عقوه أي بررين سيدي إلهي وتاغنين سبحانه وتعالى إيقو إلهي رالي هانشيس الرادينية كونت لجرين فليان أوامرت الله سبحانه وتعالى مركي أي رق ترين قاطين نقدين أي إلهي سبحانه وتعالى آيات كدن بيس لسورة السودة الله فضيدين أيه فقرأوا ما تيسر من القرآن إليه الآن إلهي وتلماميين ليدنو قادي سيدا إلهي الرمي سنتين وتاقر سنتين وعابد ساني هذا وحي القرآن كيدين فضوضات آخرية الله سودة سبحانه وتعالى. إذن عبادات كالله فري وحباد قال منها ليدي مركا كان لكن بديل بلسيي إني حرق الله سبحانه وتعالى أي حجستان صلاة إيه عبادة واستعينوا بالصبر والصلاة إلى القرآن قلت المامية كالما يستصبر يا صلاة يعني الصبر يا صلاة وهو حيابه وقوة وين قفك مؤمن كالشدائد كصارة سادر أدد با وحي الله تلمامي إني عبادة بتصدها وحكى الله تلماما قريشي نول بو يسكو ديسي taarra inay isku daydo inay nabiga mufaawada la galaan mar inay isku dayaan inay Abi Talib ka ashtakeeyaan mar inay isku dayaan in la cadaadiyo la tumo bal si walba ha lagu dayo mar in la isku dayo iqraa in manaasib iyo wax loo sheegay hanti iyo waxba lagu siinaya rabshadun jooji wax walba waa lagu dayay mesela mufaawadaadkaas hadayna soo qaadano riwaaya Albani uu saxiixinayo silsiladiisa عقيل ابن أبي طالب أياوحو كور رمي قصة وسوي شاهد عيان هاي جوغي وعلى قريش با أبي طالب وتمي يعني أبي طالب يماشيه قصص بدن بالقورية لو صاحب الرحيق المختوم دور قصة يورينيا إن كستو ابن هشام ونوتي ريان وتخريجين أمان وصفي عن سنة كذا ينوغموشين لكن تن قصة الباني وتصحيحين يعني أقول أكرم دياء العمري كتاب كيسا إلهي خير سيه وكفي عين كتب معاصرين سنددا دنبال قري ويوحي سكود إنه سنددا وحو أورورنا يوردن إنه تخريجيه أما وسكود يو الصحادة يدوين تلاكت إنه عضين كره عقيل ابن أبي طالب oo xaadisadan dhacdadan joogay ba wuxuu leeyahay Quraysh ba Abi Talib u timi waxay ku yiraahdeen marka inna ibnu akhika hada qad aadana fi nadina wa masjidina fanhahu anna inan kan bay yiraahdeen adeerka u tahay waa nagu dhibay golayaashan u fariisanaynay iyo masaajidkiiba nagala hadal yu nagu imanina yu nagu dhibine golayaasha iyo masaajidka yu naga imano na dhibine nagala hadal Aqil wuxuu leeyahay أبا إلى هذا مركز بولي عقيل وين أبي طالب ويلي يا عقيل انطلق فاتني بمحمد واربل أرض إيدون ومحمد يكن يقول محمد بيلي صلى الله عليه وآله وسلم وان بحي بيلي قرقي يرى ما كبحي دبتنا وان تجيبوا لي وان كان يقولوا قور ظهر عد كل شهي أي سوق حي يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام كان مركو يميبوا أبي طالب وحولي نبي الله الله إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهى عن أداهم أبي طالب حولي هذا الرضا الماضي الرضا وحي شيغانا ينبويلي إن الضبطي ومساجد يقول يا شودي بكل ضبطي إيه ضبط كده ساسو النبي خويل عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام انتو مركز السماء يجيبوا حولي أترون هذا الشمس هذا سما ركتان هذا الويل مكة فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة وما أود بدنبوا لنا وحن شيء يكتغه سيدا إذا أود لنا عدد دبك صوشيطان يعني عدد إذا دبك صوشيطان بيسور تقلي ومايا سيدا إذا تاو أود أيانا أنا أود بولينا دين تدافع يوان وضع يعني دعوة دي الله يفرق أبو طالب أمرك وحولي والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا أبي طالب وادي دي مركاسي إنه ما كذبنا ابن أخي بيني نومشي جنبولي نينا كان هذا كواحد اسكتك يعني وحو شيغي يوا رمبولي marka wax kale la yiraahdo ma jirtay mar haduu yiri jin maayo dhaafo buu ku yiri sida igu daayay
nimankii cadhadoodii waa sii tiro badatay quraysh ahayd iyo kolba waxay isku dayeen tawrna cadhay ku dayeen iyo xoog in lagu dayo oo waa kuwa qurunka saaraya ama lahaa madaxaanu kaga joogsanaynaa mar ashtakay isku dayayaan ya abi aalib in loo tago la yidhaahdo naga qabo mar waxay isku dayeen xataa inay isaga iqraaq ku sameeyaan inkastoo xadiidka iqraaga sanadadiisu aanay xoog badnayn sheekhan akram diyaal cumar inuu leeyahay waa daciif laakiin albani fi takhriijihi fiqh sira lilghazali markuu takhriijinayo waxaan rajaynayaa inuu taxsiininayo uu leeyahay xasan lghayri waxbuu ka ururinaya waxay sheegaysaa riwaayadkaas iyaguna inay xataa ay gaadheen kolba intay nabiga cid u soo diraan inay yidhahdaan bal la soo hadal cutba ibnu rabiico kale inta loo soo diray in la yidhi bal orod u tag wakaasoo wuxuun maanta waxaynu ku heshiina bal ninkan ula tag oo cutba uu yimi nabiga isagoo weydiisanayo leh warniyow waxaanaad doonaysa hadday madaxtinimo tahay inaanu madax kaa dhiganno hadday boqortooyo aad doonaysa tahay boqor aanu kaa dhigno ku boqorno haddaad xoolo ku doonayso dan siyaasadeed uun xoolo doon ay kaa tahay inaanu xoolo ku siino oo ka u xoolo badan kaa dhigno hablaha carbeed kuwa ugu qurux badan la kuu guurino wax kastoo dan dunaweed oo aad doonayso aan kuu yeella bay yidhaahdeen afaraqta minha ya abalwaliid buu ku yidhi ma dhammaysatay weliid aabbihiiyo haa buu ku yidhi dabeetana aayaad qur-aanuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo uu afka gacanta saaro oo iskaga tegey qurayshi waxay aragtay markaa in odaygiiba uu isa soo bedelay ilaa la yidhaahda isagiibaabay noqotay in la yidhaha war bal cid loo dira isaga laftiisu in yuu inaga kaxaysane yani halkii soomaaligii lahaa alla naxariistay annagaba nagu dari gaadhay dib uuna galay waxaa dhacday markaasi in uu isaga laftiisii markaa raadayn gaadhay qur-aankii qurayshi tawrna noocaasi isku daysay mar waxay isku dayeen inay yidhaahdaan aan taxaddi ku samayno bal aayada keen nebaan shahaganaysa una waxaad leedahay nebaan haye buurtan safa la yidhaahdo bal waa kaasi dahab nooga dhig ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay musnadu imaamu axmed xadiid ku yaalla oo culammadu waliba ay sanadkiisa jayid ibnu kaiir ku tilmaamayo wuxuu yidhi inta loo yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay idhahdeen rabbigaa waxaad noo weydiisaa buurtan yaro safa la yidhaahdo dahab inna looga dhigo waanu ku rumaynaynahay safa dahab ha noo noqoto qaala watafcaluun may rumaynaysaan unbuu yidhi haddii taa laydinka yeelo dahab laydinka dhigo haa bay idhaahdeen fadaca ilaahay buu u baryay buu yidhi dabeetana jibriil baa u yimi waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu ku yidhi ilaahay wuu ku salaamaya waxaanu ku yidhi in shi'ta asbaxa lahum asafa dahaba haddaad doonayso safa dahab baa looga dhigaya laakiin faman kafara bacda dalika minhu cadabtuhu cadaaban aliiman laa ucadibuhu axada min alcaalamiin laakiin cidda markaa ay dahab noqoto haddana gaalnimadii kusii sugnaataa waa halaagayaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala cadaab aanaan cid hore cadaabin ayaan cadaabaya haddaad doontana baabka toobad iyo raxmadaan u furaya oo yacni waxba dahab laga dhigi maayo ee wixii toobad keena una islaama ayaan islaamnimadooda ka aqbalaya labada door baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam in safi ay dahab noqoto laakiin hadday ku diidaan markanba la halaago sidii ambiyadii horeba dhici jirtay iyo in aanu safa dahabna laga dhigin la sugaan wixii islaamayo baabu tawba oo markaasi u furaado aanu noqon mid laga xidho ibnu cabbaas baa markaa wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay markaa baabi tawba waraxma dabeetana aayaad qur-aana baa soo degaysuu ibnu cabbaas sheegayo ilahay leeyahy wamaa manacna an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun waaataynaa hamuuda naaqata mubsira aayaadkaasi ilaahay uu leeyay noomay diidin inaanu soo diro aayaadka ilaa iyo in kuwii horeba beeniyeenun mooyaane yacni iyana intay beeniyaan unan markaasi halaagno oo reer hamuud iyo naaqadoodii baa lagu xogsiiyey qoladaaba mar haddaanay anficin haddana ilxaaxaasi markay ka dayn waayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku yidhahdeen bal dayaxaa laba ka dhig bay ku yidhaahdeen dabeetana ilaahay baa subxaana wa tacaala laba ka dhigay oo labada buurooda daclada magaalada ka saaran buu kala fulay sida saxiixu bukhaari iyo muslimka ku sugan saxaabiga la yidhaha cabdillahi ibnu mascuudna anaaba labadayda indhood saaray buu leeyay dayaxiyo inta ilaahay laba ka dhigay labadii buurood un korkooda ka kala muuqday waana ka ilaahay qur-aanka ku sugaya iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wan yaraw aayatan yucridu wayaquulu sixru mustamir dayaxii markay arkeenna waxay idhahdeen waadna sixirtay waa sixir indhaha iyagunbaad sixirtaye dayax laba kala noqdayna ma jira bay tilmaamayaan
quraysh waxay isku dayday hadba inay nooc uga hor yimaadaan diinta aanay si raacin marnaba nabiga calayhi salaatu wasalaam mujaadalaad iyo dood iyo waxa kan iyo maalan waxa jirta waxay culamada taariikh wariyaan maalan waxay u yimaadeen baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh innahu laysa axadun yucbadu min duuni illaahi fiihi khayr waar ma jiro ilaahay kayrkii wax la caabudo khayr leh ayuu ku yidhi qurayshina waxay ogeyd inuu kiristanku ay caabudaan maxay nebi ciise iyo warkan maxamed yidhi markaasay waxay idhaahdeen soodigii odhan jiray ciise waa nebi iyo waa caynkan addoomaa wa wanaagsan buu ka mid yahay taa macnaheedu waxa weeyaan been baad sheegto adigan le wax la caabudo oo khayr ku jira ma jiro nebiguna waxa uu tilmaamayey sida xadiidkuba tilmaamayo innahu laysa axadun yucbad min duuni illaah fiihi khayr asnaamtoodan iyo waxaan buu ka warramaya kamuu warramaynin ciise kamuu hadlayniyo yani waxaanay saman caabudayaan o dham inaa khayr ku jirin buu tilmaamayay waa ka ilaahay soo dejiyey bay culammadu sheegaan aayaadka qur-aan ilaahay leeyahy walamaa duriba bnu maryama maalan idaa qawmuka minhu yasiduun ciise bnu maryama markii yani tusaalaha ciise bnu maryam markii la keenay baa la leeyay subxaana wa tacaala qoomkaa way kaa fogaanayaan ama diinta ayay kasii cararayeen iyagoo uga jeeda nooca kan waxaan oo dhami doodun bay ahayd maa darabuuhu laka ilaa jadala baa ilahay dan kale kamay lahayn mooyaane doodun inay doodaan mooyaane wax kale ay uga jeedeen ma jirin marka aynu eegno qisada tan ay culamada taariikh wariyaan waa labadan aayadood ee quraan innakum wama ta'buduuna min duuni illahi hasabu jahannam ayaa la yidhi idinka iyo wama ta'buduun baa la yidhi ma lagu isticmaalo waxa hayru caaqilka aba meesha aayadda quraan isticmaashay iyana ciise ula kaceen waxay dhaadeen adiga ciise caynkan ka sheegay ala kulli xaal dooda quraysh aad bay u tiro badnayd ay kolba dhanka imanayaan mar ay yidhaahdaan isku dayaan inay qur-aanka beeniyaan mar ay isku dayaan inay yidhaahdaan dad baa kuu sheegay ama cid kalaad ka baratay mar ay yidhaahdaan yani kolba dhan unbay isku dayeen inay kaga yimaadaan waxaasoo dhammina waxay ahayd in uunay isku dayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay cajsi geliyaan ama inay maagaan ama inay fogeeyaan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhammi kama joojin inuu diinta sideedii u wado oo aanu marnaba u joojinin qadayaadkooda kan laakiin iyana waxay tiro badiyeen oo aad u tiro badiyeen tacdiibkii iyo cadaabkii ay ku hayeen dadka muslimiinta ahaa gaar ahaan dadkii mustadcafiinta aan waxba iska rabaynin markaasba wuxuu nebigu idmay ama se ogolaaday hijraadkii in xabashada loo hijroodo hijradii koowaad mar labaad haddana in xabashada loo hijroodo iyadoo mujarad la ilaalinayo dadkan muslimiinta iyo istidcaafka lagu hayo in sha allahu maanta aan halkaan ku joojino wallahu aclam